barasaabka gobolka Togdheer mudane Maxamed Muuse Diiri ayaa maanta ku dhawaaqay shaqaalaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta muwaadiniinta gobolada Togdheer Buuhoodle iyo Daadmareer. Barasaabka gobolka Togdheer iyo saraakiil ka socda hay'adda shaqada iyo shaqaalaha ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Burco. Waxay ka dhawaaqeen tirada shaqaalaha ka howlgali doona gobolada Togdheer, Daadmareer iyo Buuhoodle oo 48 qof oo shaqaalaha kuwaas oo ka shaqeyn doona diiwaangelinta muwaadiniinta. Waxaana gudoomiyaha iyo hay'adda shaqaaluhu sheegeen shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo qofka doonaya shaqadaasi. Hadaladoodina waxaa ka mid ahaa saaka ku cadeen ku baahinayna ama ku soo bandhigayna gobolka Oodweyne iyo Buuhoodle 48 xubnood oo 3 qaybood ah saddexda qaybood oo goobtiiba ay 3 xubnood ka hawlgeliyaan inaanu kala garayno oo cadeyna muddada xilliga ay hawsha bilaabayaan, xilliga ay siifiyadooda keenayaan, xilliga ay ka dhamaanayso qabashada siifiyada. maamulka gobolka oo wada jira waxay baahinayaan shaqaalahaas loo qorayo ee u tartamaya jagooyinka 84 ah oo national ID card ka shaqeyn doona. maanta oo soo dhaafnay marxaladihii degmooyinka waxa loo qaybsan jiray cidii danaynaysa muddada 4 cisho ah gudahooda inay ku soo xareyso CV-yadooda. imtixaan baa la qaadayaa, imtixaanka la qaadayo runtii wax badan baynu kaga badbaadinaa. goobjoog baa loo wada noqonayaa. xabiiska wasaaradda shaqada ayaa runtii CV-yada lagu soo xareynayaa. waxaan leenahay cid allaale cidii danaynaysa muddada 4 cisho ha ku soo gudbiyaan dukumentiyadooda. si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku nool magaalada Burco gaar ahaan dhalinyarada ay ragaadisay shaqo la'aan ayaa maalmahan u dambeeyay ku hawlanaa diyaarinta siifiyadooda sidii ay u hanan lahaayeen shaqadani. Xabiib Saciid Xasan, shabakada caalamiga ee Qorlugud News, magaalada Burco.